Shaqaalaha shirkadda samaysa diyaaradaha ee Boeing ayaa sanadkii 2016 la sheegay inay isku direen fariimo ku saabsan cilad ay ku arkeen diyaaradda nooceedu yahay 737 Max oo ahayd noocii labada jeer galaafatay nolosha boqolaal qof. Dukumeentiyo qoraal oo shirkadda Boeing ay ku wareejisay garyaqaanadeeda ayaa muujinaya mid ka mid ah duuliyayaasha diyaaraddaasi uu sheegay in dhibaato aan hore loo sii shaacin uu la kulmay xilli uu tijaabinayay diyaaraddaasi. Waxa uu sheegay in isagoon sugayn uu been u sheegay hay'adda ilaalisa badqabka diyaaradaha ee Mareykanka. Cilad dhanka hannaanka badqabka diyaaradaha ayaa la xiriirinaya laba shil oo ay ku dhinteen 348 qof. Diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya oo nooceedu yahay 737 Max ayaa bishii Maarch ee sanadkan burburtay daqiiqado kadib markii ay ka duushay garoon ku yaala magaalada Addis Ababa, waxaana shilkani ku dhintay 157 qof. Diyaarad kale oo isla noocaasi ah oo laga leeyahay dalka Indonesia ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ku dhacday badda wax yar kadib markii ay ka duushay garoon ku yaala magaalada Jakarta. Shilkaasi waxaa ku dhintay 189 qof oo saarnaa diyaaraddaasi. Maamulka duulimaadyada ee dalka Mareykanka ayaa macluumaadkii ku saabsanaa in cilad lagu arkay diyaaraddan xilligii la tijaabinayay ku tilmaamay mid walaaceeda leh, waxaana ay sheegeen sharaxaad degdeg ah ay ka dalban doonaan shirkaddaasi. Dukumeentigan ayaa soo shaac-baxay xilli bishan gudaheeda uu bilaabmi doono dhageysiga dacwadda ka dhanka ah shirkadda. Khubarada baaritaanada ku sameynaysa burburka diyaaradihii ka dhacay gudaha dalalka Itoobiya iyo Indonesia ayaa baaritaankooda diiradda ku saaray barnaamijka MCAS la yiraahdo oo diyaaradaha u sahlaya in si fudud ay hawada u galaan. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in saameynta markii hore ay keentay hakinta diyaaradda 73 Max ay u muuqatay mid cayiman, balse waxaa suurtagal ah inay saameyntu sii badato haddii aan muddo dheer loo ogolaan inay duulimaad samayso. Shirkadda Boeing ayaa waxay si ku meel gaar ah hoos ugu dhigtay soo saaridda diyaaradaha nooceedu yahay 737 oo suuq weyn dunidu ku lahaa kahor inta aanay dhicin shilalka diyaaradaha ee Itoobiya iyo Indonesia.